Dalalka ku midoobay Yurub ayaa waxay soo dejiyeen sharci adag oo ay ku heshiiyeen bishan ayaa waxaa ka mid ah qodobo adag oo lagu xakameynayo dadka soo galootiga ah. Qodobadaas waxaa ka mid ah in dadka markay si sharci darro ah kusoo galaan lagu celin doono meesha ay ka imaadeen, qaar badanna lagu celin doono waddamo kale oo ay dhaheen waa nabad si xagga ah loogu process gareeyo asylum-kooda. Sidoo kale, waddamadan Yurub ayaa waxay go'aan ku gaareen in ay badin doonaan tarxiilka iyo xiritaanka dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee dalkaas Yurub ku gala ee tahriibka. Waxyaabaha kale ay qorsheynayaan waxaa ka mid ah inay lacaga deeqa ugu baaqayaan waddamo badan oo iyaga ka caawinaya inay xakameeyaan dadka qaaradooda kusoo qulqulaya. Ingiriiska ayaa sidoo kale wuxuu soo saaray sharciyo aad u adag. Boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale waxay soo bandhigtay sharciyo adag ay kula tacaalayso dadka qaxootiga soo galootiga ah waddankooda. Waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid ah in hadda ay sameynayaan sharci ah oo qofka inuu sugayo 20 sano wax la eg sharciga intuusan uu qaadanin. Haddiiba qofka uu si sharci darro ah ku galo dalkaasi, awal waxay ahaan jirtay 5 sano kadib inuu sharciga qaadan jiray, balse hadda 20 sano ayay ka dhigeen. Inkastoo sharcigu baarlamaanka mari doono, balse waxaa la filayaa in xukuumaddan hadda haysata oo Labour-ka u badatay dhanka cunsurinimada ayaa la sheegayaa inay meel marin doonto. Sidoo kale waxay jarayaan dhaqaalihii iyo waxyaabihii la siin jiray dadka qaxootiga ah oo sharciga sugayo. Sidoo kale, familadii loo keeni jiray ayaa la adkeynayaa. Sharciyada adag ee dalka Ingiriiska ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah dadka qaxootiga ah markay sharciga qaataan haddii dalkii ay ka yimaadeen isbeddel uu sameeyo in dalkooda lagu celin doono. Sidoo kale waxay soo dejiyeen qaab casri ah oo lagu ogaanayo qofka da'da uu sheegto, maadaama ay dad badan jiraan da' kala duwan ay sheegtaan, kuwa yarna ay sheegtaan da' weyn, kuwa weynna ay sheegtaan da' yar. Hadda waxay sheegeen inay isticmaali doonaan caqliga macmalka ee ayda inay dadka ku qiimeeyaan da'dooda. Dhanka kale, hal war oo farxad leh ayaa ka soo yeeray Ingiriiska kadib markay soo gudbiyeen shuruucdan adag. Halkan war oo farxadda lehna waxaa weeyaan in dadka ay si caadi ah ku iman karaan oo sharci ah. Barnaamijkan oo la mid ah barnaamijyadii Canada ayaa waxaa hadda la siinayaa fursad community-yada dalka Ingiriiska inay sharciyada dadka qaxootiga ah si toos ah u keeni karaan ee iyaga sponsor gareyn karaan. Sharcigan oo isagana la marin doono baarlamaanka mar haddii la ansixiyo waxay fursad badan u siini doontaa dad badan inay si sharci ah ku galaan dalka Ingiriiska. Markii la isku soo duuduubo guud ahaan shuruucdan adag ee dalalkan midowda Yurub ay soo saareen waxay fursadihii oo dhan ka qaadaysaa qof walba oo rabay inuu waddankaas si sharci darro ah ku galo. Balan la wadaag asxaabtaada iyo dhallinyarada ku kadsoomi karta inay Yurub ku galaan sharci darro. Waxay kuu fiican tahay adiga iyo mustaqbalkaada inaad akhrisid shuruucda. Linkiyadana halkan ayaan soo gelin doonaa saa adiga uga bogatid wax walba oo cusub shuruucda. Haddaba waxaan kaala talinaynaa inaad ka fiirsatid mar haddii aad doonaysid aad qorsheynaysid inaad aadid shuruucdanna inaad akhrisid. Linkiyada hoose ayaan soo dhigi doonaa. Fadlan iska akhri. Dhammaan hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka way ka hadleen wayna diideen shuruucdan ay Yurub soo rogtay, balse way ku adkeysanayaan. Goordhowna baarlamaanka ayaa la marin doonaa. Fadlan ka fiirso, akhriso, kadibna go'aan ka gaar inta aadan naftaada isu dhiibin.